dowladda hoose ee degmada Balligubadle ayaa maanta olole ballaaran oo nadaafadeed ka fulisay gudaha magaalada Balligubadle gaar ahaan xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya. Ololaha nadaafadeed ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen barasaabka gobolka Hawd, maayirka degmada Balligubadle, xogayaha gobolka Hawd, gudoomiyaha qabaleega dhinaca Itoobiya ee magaalada Balligubadle, xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balligubadle iyo xubno kale. sidoo kale ololaha nadaafadeed ee laga fuliyay gudaha magaalada Balligubadle waxa si weyn uga qayb qaatay ururada kala duwan ee bulshada ee degmada Balligubadle ee gobolka Hawd. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay oo ololaha nadaafadeed ee dowladda hoose degmada Balligubadle ka fulisay gudaha magaalada Balligubadle ka warbixiyay maayirka degmada Balligubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine iyo xildhibaan Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar oo kamid ah golaha deegaanka degmada Balligubadle. runtii maanta waxaan noo sharaf ah inaanu joogno xarunta gobolka Hawd degmadiisa Balligubadle ee caasimadda gobolka Hawd oo runtii aanu maanta ka bilownay ololaha qashin ururinta maanta waxaanu qashinkan ka ururinaynaa labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya inta u dhaxaysa. alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa maanta inagu kulmiyay ama inagu sugay goobta u dhaxaysa labada dal ama labada magaalo dhexdooda ee ah lama deegaanka ama xuduudka loo yaqaano aynu maanta taaganahay. waxaan isla garanay inaan labadii gudoomiyaha aanu hawsha iyo qaybta xubnaha dawladda hoose inaan hawsha ka howlgalno oo aanu hagaajino qaybta u dhaxaysa labada magaalo ama labada dal. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ay kamid ahaayeen iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Hawd Axmed Cali Dareyse iyo xogayaha gobolka Hawd Maxamed Faarax Suugal iyo gudoomiyaha qabaleega dhinaca Itoobiya ee magaalada Balligubadle Cabdi Nadiif iyo xubno kale. hawshan halkan laga hayaa waxa weeye waa hawl kor lagu qaadayo sanitationka iyo horumarinta caafimaadka. goobahan aynu taaganay waxa mara biyaha ka soo rogmada waxay galaan biyaha barkadaha ay galaan. maanta waxa arkaysaan in la nadiifiyay goobihii ay ka imanayeen biyuhu ay galayeen. maanta halkan waxaanu joognaa ay ku astaysan tahay maalinta ololaha nadaafadda ee gobolka Hawd gaar ahaan caasimadda Balligubadle. waxaanu ogsoonahay nadaafaddu inay tahay qayb ka mid ah iimaanka diinta islaamkuna waxay ka istaagtay meel aad u sareysa. insha Allah waxaan rajeynayaa in nadaafadan ay noqoto mid joogto ah. halkan markaan ku suganay waxa weeye halkii xuduudka u dhaxaysay labada dal. annagoo ururkaygu marka hore ku santanaa inaanu ka qayb qaadano bilicda magaalada. maanta aanu ka soo qayb qaadanay bilicda magaalada anigoo ku hadlaya afka ciyaartooyda kooxda dawladda hoose degmada Balligubadle waxaanu saaka ka qayb qaadanay olole nadaafadeed oo ka socday magaalada. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ururka dhalinyarada wada jir. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano dhammaan ololaha u dhaxeeya labada xad. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax waxaana u mahadnaqay bulshadii kala duwaneed ee ka qayb qaadatay ololaha nadaafadeed ee laga fuliyay gudaha magaalada Balligubadle. maanta waxaan halkan u taaganahay waa maalin nadaafadeed. waa maalintii loo asteeyay inaan magaaladan Balligubadle aan kaga gurno qashinka. kullayba nadaafad ahaanna waan ognahay xaggay minadiin ka tahay diin ahaan ay ka taagan tahay. caafimaad ahaan iyo nadaafad ahaan halkay ka taagan tahayna waan ognahay. marka kulley maalinta loo astay insha Allah haddii la yiraahdo ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan iyo qabaleega Itoobiya magaalada Balligubadle laftiisaba inagoo iskaashanayna insha Allah waxaan sameyn doonaa haddii la yiraahdo waan joogteyn doonaa. halkaan maanta joogno waa lama degaankii ninka halkan lama degaanka qashin lagu arkay isagoo dhigayana waajibaadkiisa laga mari doonaa haddii la yiraahdo. wada shaqayn wanaagsan baan u rajeynayaa labada gudoomiyaba haddii la yiraahdo. kulley wixii wanaagsan in laga wada shaqeeyana waa muhiim waana qasab. maxamed Shiciir Axmed iyo Cabdinajiib Dayib Cismaan TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.